السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا عشرادني امتحانها ee barashada luqadda Python ee aad kala socoteen channelka CR Warsame. casharkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa hadduu alligaa qaar ka mid a functionska uu leeyahay list muhiimka ah. functionskaas aan soo qaadan doono waxaa ka mid a function la append, insert, remove, del, sort, reverse, minimum iyo maximum functions la ayaan kusoo qaadan doonaa hadduu alligaa casharkeena maanta. haddii aan bilaabo waxaan abuurayaa functionkeennii mainka. waxa aan ku dhex abuurayaa functionkeygii mainka list magacyaa. tusaale ahaan waxaan leeyahay names is equal to waxaan ku abuurayaa tusaale ahaan laba magac, cali iyo tusaale ahaan asad. liistkii soo daabac haddii aan dhahno dabcan magacyadii ayaa la soo daabici doonaa. haddii aan dhaho soo daabac liistkeygii magacyadii ayuu kuu soo daabici doonaa. dabcan uma yeelin functionka mainka sida kuu muuqanayso. aan u yeero marka qaar way kugu dhici kartaa errorka noocaas oo kale ah. functionkii markaan u yeero waxaa dabcan ay soo daabacaysaa sida aan sheegay labadii magac ee igu jiray liistkeygii. functionka ugu horeeya waxaa la yidhaha sida halkan ka muuqanayso append. append magaceeda si ka muuqanayso waa gadaal uga dar, ku daba dar, ku daba qabo. append haddii aan dhaho names dot append liistkeygii names la dhahay waxaad ku dartaa oo gadaal uga dartaa. append marka gadaal uga dar waa waxaa gadaal uga dartaa magac kale ayaan ku darayaa. tusaale ahaan waxaan leeyahay ayaan gadaal uga dar. haddii aan dhaho now liistkeygii soo daabac waxa uu samayn doonaa magacii aan ku dardhahay inuu ku daro ayuu ku tusaya. liiskii hore wuxuu ahaa cali iyo asad, liiskii dambena cali iyo asad iyo ayaan ayuu sida kuu muuqanayso noqonay. marka function ugu horeysa waxaa la lahaa append. append waxaa laga wadaa liistkeygii gadaal uga dar. wax walba ay marka u paas garayso ayaa gadaal looga dari doonaa. function ku xigto waxaa la dhahaa insert. insert waxay uga duwan tahay iyadu haddii aan dhaho names dot insert append waxay qaadataa sida halkan kaaga muuqanaysay hal value oo ah wixii aad rabtay liiskaaga in lagu daro, wixii aad rabtay gadaal in looga daro. insert laakiin iyadu waxay qaadataa laba value ama laba parameter. kan koobaad wuxuu noqonayaa waxa aad ku daraysid intee rabtaa inaad geyso. marka insert waa xukumi kartaa liiskaygii waa kan haddana ayaanaan gadaal uga daray saddexdii item liiskii waxa aan rabo inaan ku daro. ma gadaal raba inaan ugu daro, ma hore raba inaan ugu daro, ma dhexdaan raba inaan ugu daro, anigaa sheegay. tusaale waxaan leeyahay 0, waxaa ku dartaa magac kale. tusaale ahaan waxaan leeyahay Aisha. 0 waxaa laga wadaa marka index 0 marka xaraf numberka ugu horeeyo ka dhig waay. index 0 awal waxaa ahaa cali, index 1 waxaa ahaa asad, index 2 na waxaa noqday ayaan. this time waxaa la samayn doonaa in la shift gareeyo oo laga dhigo index 0 magacan cusub Aisha, index 1, index 2, index 3 sidaas oo kale ay noqoto. marka numberka wuxuu u taagan yahay mar walba intee rabtaa liiskaagii, halkee rabtaa positionka aad rabtid inaad ku darto, indexka aad rabtid inaad ku darto ayaad ku sheegaysaa. haddii aan dhaho soo daabac liiskaygii markan wuxuu ku tusayaa inuu soo daabacayo Aisha oo hore la geeyey, Ali iyo Asad iyo ayaan oo liiskii sidii hore isugu xigeen. haddii aan dhaho tusaale ahaan waxaa geysaa index 2, 0 kana noqonayo 1, 2, 3. marka waxaa isku xigsanaya labada magac ee gadaal aan uga daray. waxaan hormaraya dabcan Aisha, Ali, asad, Aisha iyo ayaan sidaas oo kale ayuu noqonayaa. wuxuu ku tusayaa marka haddaa fiiriso functionkan append wuxuu mar walba samayn doonaa wixii aad u pass garayso value aad siiso ayuu liiskii gadaal uga darayaa. insertina wuxuu samayn doonaa adiga ayaa sheegayo positionka aad ku daraysid. position 0 miyaa ku daraysaa, position 1 miyaa ku daraysaa, 2, 3, 4, 5 kii uu ahaadaba adiga ayaa xusi doono ama cayimi doono. tusaalaheena labaad labadan function ayaan example-keena hore ku aragnay. example-keena labaad waxaan ku arkaynaa labada function xigto remove iyo del. sida magacyada ka muuqanaysa waa tirtiris. kuwii hore waxay ahayd waa cusubaan ku darayay, kuwaana waxay ii suurta gelin doonaan inaan wax ka remove garayo. liiskaygii waa iska tirtirayaa intaa hore, waan dheeraynayaa liiskii. waxaan leeyahay laba magac kale ku daraya. tusaale ahaan waxaan leeyahay cabdi iyo xamdi. tusaale ahaan liiskii soo daabacaan dhahay. marka la soo daabaco waxaan rajaynayaa afartoodii la soo daabaci doonaa. next waxaan leeyahay liiskaygii waxaa ka remove garaysaa hal magac ka remove garee. waxaan leeyahay names dot remove. waxaa remove garaysaa. remove waxay rabtaa marka waxa aad rabtay inaad remove garayso magaciyaa toos u sheegaysaa. waxaa leeyahay tusaale ahaan waxaan rabaa inaan remove gareeyo asad. magacii meelahan ku qornaa magacyadii ku qornaa halkan itemiskii aan sheegaya ama elementii aan rabo which element to remove ayaan u pass garaynayaa. marka haddaan dhaho names dot remove asad oo aan dhaho this time print soo daabac again names soo daabac
liiskaygii mar kale soo daabac haddii aan markii la remove gareeyo wuxuu ku tusayaa Ali Asad Abdi Hamdi. Ali Asad Abdi waa tii aan dhahnay, sorry, Ali Abdi Hamdi waa tii aan dhahnay. waxaa remove garaysaa magaca Asad remove garayna. marka remove marka aad rabto inaad isticmaasho waxaa u baas garaynaysaa wixii la remove garaynayay. sidii haddaba aan soo arnay abbendi waxaan u baas garaynay wixii aad rabtay inaad ku darto. remove-na waxaan u baas garaynaynaa wixii aad rabtay in aad remove garayso. haddii aad wax remove garayso ama wax tirtirto waxaa sidoo kale isticmaali kartaa function la yidhaha del. waxaan leenahay del marka iyadoo syntaxkeedu uu ka duwan yahay kuwa kale haddaa fiiriso. waxaan leenahay del names of zero. marka qaabkaan iyadoo syntaxkeedu noqonaya markaa qorto del waxaad sheegi doontaa liiskii magaciisa brackets aad furi doontaa bracketskii liiska loogu talagalay. kabacdina waxaad sheegi doontaa indexka aad rabto inaad wax ka remove garayso. markaan dhaho del names of zero waxaa la remove garayn doonaa waxa ugu horeeya waxay rabaan noqdaan. haddii aan hadda dhihi lahaa remove cali hadda halkaan dhihi lahaa asidaa zero noqon lahaa asidaa markaas la remove garayn. hadda laakiin asid maadaama remove garay karaa zero ah kan ayaa la remove garayn doonaa. labada dambe ayaa ii hari doonaan. marka del qaabkaan u qorantaa iyadana waxaa siin doontaa indexka wax ka remove garaynaysay waxay u egtaa haddaa fiiriso ama shabahdaa insert waxaan sheegaynay indexka aad wax gelinaysid. delna waxaan sheegaynaa indexka aad wax ka remove garaynaysid. haddii aan dhahno soo daabac liiskaygii waxa uu ku tusayaa in uu markii hore uu liiskii oo dhammaystiran soo daabacay, markii labaad uu remove gareeyey Asad, markii saddexaadna uu remove gareeyey Cali oo isaguna kasii horreeyo index zero ah in uu remove gareeyey ayuu ku tusayaa. marka way iska soo horjeedaan haddaa fiiriso labada afarta function ee hadda aan sharaxnay. abbendi iyo insert waa wax ku darid. abbendi gadaal ugu daraysaa, insertina meeshii aad ku daraysaa adaa sheegayo, remove wixii la remove gareynaya sheegaysaa, delna meeshii wax laga remove gareynaya ay sheegaysaa positionkii ama indexkii. functionska noogu xigo waxaa la kala sort iyo reverse. sort iyo reverse waa iska fudiin iyaguna sida magaca ka muuqanaysana dabcan midna waxbay sort gareynaysaa midna waxbay cagsi ka dhigaysaa. waxaa leenahay numbers is equal to waxaan abuuraynaa array ama list ka kooban numbero. waxaan leeyahay 5 8 2 1 iyo ugu dambeyn 4. liiskii aan soo daabaci karaa waxaan leeyahay tusaale ahaan waxaa soo daabacdaa liiskii soo daabac inta aan la sort garayn. liiskii soo daabac inta aanan la sort garayn. tusaale waxaan leeyahay original liiskii originalka ahaa sidaan ayuu ahaa. waxaan u yeerayaa functionkaygii sort numbers.sort waxa ma qaadanaysa iyadoo marka then waxaan leeyahay waxa ii soo daabacdaa sorted liiskii oo la sort gareeyay sidan ayuu noqon doonaa. markaa sort gareey kabacdi isla magacii la u yeeraa dabcan. haddana waxaan leeyahay numbers dot reverse waa dabcan cagsi ka dhig waaye. haddii aan dhaho markana waxaa ii soo daabacdaa reversed liiskii oo la kala gediyey ii soo daabac haddii aan dhaho. haddaa fiirsa marka waxaan abuuray liiskaygii nambaraa ku jira. nambarada ayaan waxaan dhahay iyagoo sidii ii soo daabac sorti garee. markaa sorti garee iska bacdi ii soo daabac reverse garee. haddana sortingkii sidii aan u sorti gareeyay cagsi ka dhig waayo macnaheedu reversigu cagsi ka dhig waa bis reversigu mar walba. kabacdina waxaan dhahay liiskii oo reverse ah ii soo daabac. haddii aan ran dhahno waxaan rajaynayaa marka hore 5 8 2 1 4 waa sidii aan u gelinay. kan haddaa fiiriso sidii ay u kala waaweyn yihiin waaye si ay u kala yarar yihiin kusoo bilaabay 1 ilaa 8. haddaa fiiriso iyadoo cagsiga ayuu halkaana uu ku soo xusay. marka sorti waa sorti garayn ascending to descending wixii ascending wixii la dhihi jiray waaye si ay u kala yarar yihiin ka yar ka bilaabo ilaa kan u weyn smallest to largest wixii la dhihi jiray waaye. haddii aan dhaho reverse anoo sorti gareeyana iyaduna waa descending ka dhig oo siday u kala waaweyn yihiin largest to smallest. hadday alphabets taana dabcan a to z ama z to a ayay noqon lahayd oo alphabetska sidii ay mar walba u kala horeeyeen ayay usoo kala hormari lahayd. now haddii aan wax yar meeshaan aan ku tuso haddii aan intaan ka tiro ayaan dhaho numberskii sidaan ay ahaayeen original list sidaan ahaa reverse haddii aan dhaho oo aan u yeero sidan ma waxay kula tahay oo isleedahay wuxuu soo saari doonaa 8 sida halkan soo saaray 8 5 4 2 1 miyuu soo saari doonaa mise wax kale soo saari doonaa isleedahay. ka fikir waxaan bal isweydii natiijada bal adigu ka jawaab kabacdina natiijada soo baxdo aan isla fiirinaynaa. haddii aad fiiriso numberskii waa kan reverse macnaheedu waxaa waaye ma ahan waxaa u sorti garaysaa descending order u sorti garay maaha iyadu mar walba
iyadu waxa way liiskii ah haysatay cagsi ka dhig marka 5 8 2 1 4 haystay waxay ka dhigi doontaa 4 1 2 8 5 gaagaal soo akhrin doontaa bis iyadu marka sorting shaqo kuma lahan ogaaw iyadu sorting shaqo kuma hadaa fiirs liiskii 5 ilaa 4 aha 5 ilaa 4 gaagaal ayaa loo soo akhrinaya hadaa fiirs 5 ilaa 4 4 ilaa 5 marka liiskii bis ah haysta la kala gedinaya ma ahane iyadu waxa ma sorting garayso waxa laga yaabaa marka inaad u fahanto inay tahay reverse inay sameynayso inay liiskaagii descending order u sorti gareynayso markaan sorti dhaho oo liiskaygii si sax loo sorti gareeyo oo 1 ilaa 8 loo sorti gareeyo 1 ilaa 8 kii ay cagsi ka dhigaysaa reverse waxaan rajaynayaa in la fahmay haddaa fiirsa marka liiskiisaan ahaa 1 ilaa 8 laga dhigay kabacdiyaan reverse u diray that's why 1 to 8 meesha ahayd 8 to 1 loogu bedelay marka kala gadin bis waay reverse ugu yahay iyadu waxba sortingka ma lahan laakiin functionka sorti ayaa sortingka samaynayso marka sorti waa sorting aan taqaanay ascending order ama smallest to largest ama a to z reverse hadda ayadoo sorti garaysana waxay noqon doontaa descending order ama z to a wixii aan dhihi jirnay labada function oo ugu dambayso waa iska fudud yihiin minimum iyo maximum waa kan ugu yar iyo dabcan kan ugu weyn haddii aan dhaho printy waxaa soo daabacdaa minimum of liiskii magaciisa muxuu ahaa numbers kan kalena aan dhaho printy waxaa soo daabacdaa maximum of numbers dabcan daarta waa sii sharci kartaa tusaale ahaan haddii aan dhaho smallest num is numberka ugu yar waa sidan oo kale smallest num is numberka ugu yar waa sidan dhanka kalena haddii aan dhaho biggest number is ama largest number kiyaa dhahdaba biggest num is numberka ugu weyn waa sidan marka minimum iyo maximum waxay sheegaan numberka ugu yar iyo numberka ugu weyn haddii aan ran dhahno wuxuu ku tusayaa outputka smallest number is hal numberka ugu yar liiskan waa hal dabcan liiska saddexdiisa waa isku mid nambarada la kala gediyey numberka ugu weynna waa 8 marka hala ugu yar 8na waa ugu weyn yahay dabcan sida halkan kaaga muuqanayso minimum iyo maximum ayaa dabcan ay u taagan yihiin min iyo max functionskani aan ku talagalnay maanta intaas ay ahaayeen aan hal mar dul maro waxaan dhahnay functionka append waxay ku suurtagelinaysaa gadaal in looga daro liiskaaga wixii aad rabto tusaale haddaan dhaho numbers.append 8 kale ayaa gadaal looga dari doonaa insert waxay ku suurtagelinaysaa in liiskaagii meeshii aad rabto horey geli dhexda geli kan labaad ka dhig kan saddexaad ka dhig kan afraad ka dhig kan ugu dambeeya ka dhig meesha aad rabto inaad sheegi karto iyo itemkii la gelinayay remove waxay ku suurtagelinaysaa any element yaart inaad remove garayso inaad u sheegto tusaale ahaan 4 remove garayaan leeyahay 2 remove garay 8 remove garay haddii uuna jirin waa error dabcan del sidoo kale waxay remove garaynaysaa indexkan shayga wax ka remove garaynaya haddaan dhaho del of numbers of 0 numbers of 1 numbers of 2 indexka aan wax ka remove garaynayay ayaan sheegaya sorti waxay sheegaysaa inay sorti garayso si u kala yaryar yihiin ama alphabetska si usoo kala horeeyaan a to z reverse cagsi ka dhigaysaa way kala gedinaysaa min ama minimum waxay ku sheegaysaa value ugu yar numberka ugu yar dabcan numberska la isticmaalaa maxna waxay ku sheegaysaa numberka ugu weyn intaas ayuu casharkeena ku egyahay maanta dabcan functions kale ayuu leeyahay liisku laakiin kuwaas ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee ugu isticmaalka badan ilaa 8daas function waa ku mahadsantihiin waqtigiina iyo daawashadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh